laga soo saaray cabdullah waa raacnaya kubadda waa madaxeeyeen madax ayaa mar kale looga soo badbaadiyey abeel geeska ayuu dhigay waqtigan waa kan cabdallah waana goole ayaa la ciyaari kara laakiin garab dhaaf inay tahay ayuu ka baqay qalad ayaana laga sii dhigayaa qalad ayaa waqtigan saaxiibayaal laga dhigayaa si wanaagsan ay u ciyaarayaan waqtigan saaxiibayaal waa soo baasteen waqtigan waa kan wiilkan marka lixaad banaanka la soo dhigay waa xarooday waqtigan kibis waa tuulan banaanku soo dhigay laakiin maya golhay Salim Shacbaan ayaa ka badbaadiyay kubaddaasi isku day wanaagsan ayuu sameeyay laakiin ma noqon mid guuleysatay waxa uu sameeyay wax walba oo isagu guul ku gaari karay laakiin waa laga diidayaa waqtigan isku day qurux badan ayay sameeyeen laakiin waa laga badbaadinayaa si wacanay markan u ciyaarayaan wiilasha midnimo ayakigis waqtigan waa duulaan qolada taageerayaal ayaa ku sugan gudaha garoonka saaxiibayaal si ay u daawadaan ciyaartan xiisaha badan banaanka la soo dhigay bayska laakiin waa laga badbaadinayaa wiilka lambarka 14aad Cabdiraxmaan banaanka ayuu soo saaray kubaddaasi si wacan iyaga markan ciyaarayaan bandhig wanaagsan ay ku jiraan waa laga badbaadiyay laakiin ma aysan noqon waa kan wiilka lambarka 6aad waa ay soo dhigan banaanka towsan banaanka ayuu soo dhigay waqtigan kigis ayaa duulaana wax ka tur wanaagsan la sameyn karaa wali kigis waa duulaan ma laakiin birta isku day wanaagsan ay sameeyeen wiilasha kigis laakiin kubaddaasi waxay ahayd mid si wanaagsan ay u la xaragoodeen mid si wanaagsan ay u qaateen laakiin dhamaystirkooda uusan ahayn mid guuleystay waa ay sameeyeen waa ay wanaajiyeen waa ay qurux badneed laakiin waa laga diiday waay baasteen kubadda dhax ka tur wanaagsan cabdallah iyo mooli ayaa laakiin ka badbaadiyay kubaddaasi qalad ayaa yaala waqtigan saaxiibayaal qalad ayay sheeganayaan wiilasha kooxda kubadda cagta ee midnimo
bidixlahan waa mid cajiib ah waa xaradooda markan banaanka ayaa loo dhigi karaa dalton maya waa laga badbaadiyey ay soo korosayaan waqtigan si wanaagsan ay markan saaxiibayaal u ciyaarayaan geeska ayaana la soo dhigayaa waa ku dagaalamayaan waqtigan iyaga ayaa weli ciyaaraya saaxiibayaal binigoodu waa wanaagsan yahay waa kan markan geeska si wacan markan u ciyaarayaan iyaga markan duulaana kigis waa kan wiilka laga caabo shinwa waa baasi kubadda la ciyaara jaamac isku day wanaagsan laakiin maya koona ay soo tuuran doonaan mar kale waa ay soo koornayn doonaan kubaddaasi waa ay soo koornayn doonaan saaxiibayaal waa la soo koroosa kubadda maya waa laga badbaadinaya waqtigan waa kan wiilka lambarka 7 axmed cabdi axmed gadaal ayuu saaxiibkiisa u la ciyaaray walyomba ayaa lala sii ciyaari karaa laakiin gool haya saciid ayaa lala ciyaaray waqtigan isaga ayaa haasta markan kubadda iska ilaaliyaan laga dafin gool haya saciid musa ayaa raacanaya kubadda waa kan cabdiraxmaan isaga ayaa haysto waqtigan banaanka ayaa loo soo saaraya saaxiibayaal si wanaagsan ay waqtigan u ciyaarayaan wax ka tur wanaagsan la sameeynaya waa laga badbaadinaya markan musa muhaba haye musa waa kan musa wax ka tur wanaagsan ayuu sameeyni karaa musa abela la ciyaar laakiin maya waa laga badbaadinaya waqtigan kigis ayaa waqtigan duulaana ciyaarta waa ay soo nooleynayaan waa kan axmed waa baasi kubadda waa la soo laaday laakiin golaha Zaalim ayaa badbaadiyay midnimo ayaa waqtigan saaxiibayaal duulaana geeska ayaa la dhigayaa waqtigan si wanaagsan banaanka la soo dhigay laakiin waa laga badbaadiyey apel gol haya Zaalim ayaa gadaal ka soo bilaabi doona kubadda waa la soo dhaxbixiyay waqtigan Rashid Magola ayaa la ciyaari karaa Rashid waa laga saaray banaanka Yomali wiilka lagu magacaabo wiilka lambarka 5 ee kigis waxa lagu magacaabo Olyumbe Bahrama Shandana Ogwana ayaa lagu magacaabaa si wanaagsan markan Musa Muhaba isaga ayaa wali ciyaaraya laakiin اليوم golaha saciid ayaa waqtigan ba shaalay saaxiibayaal saciid si qurux badan ay u ciyaareen waqtigan Musa Muhaba banaanka ayuu soo dhigay waqtigan kigis ayaa duulaana midnimo ayaa laga dhalin karaa laakiin koona markale ay koona soo tuuran doonaan saaxiibayaal
isku day wanaagsan ayay sameeyeen maya laakiin waa laga badbaadiyay waqtigan gool haya Zalim ayaa waqtigan dhulka yaala saaxiibayaal dhaawac ayuu sheeganayaa badbaadina wanaagsan ayuu sameeyay laakiin waqtigan hadii ciyaarta laga saaro waxay ahaan doontaa mid aan qurux badnayn waxay ahaan doontaa mid uusan ku farxin babaay waxay ahaan doontaa mid gabi ahaanba wiilasha midnimo aysan ku farxin maadaama waqtigan ciyaartu ay tahay eber iyo eber Zalim wuxuu ka mid yahay gool hayaasha wanaagsan bandhig wanaagsan ayuu ku jiraa ciyaar wanaagsan ayuu soo bandhigaa sayf wanaagsan ayuu sameeyaa laakiin hadii uu ciyaartan ka baxo waa loo yaabo doonaa asoo saadaalin kartaan natiijada kulankan saaxiibayaal Makigis ayaa galabta dhibic heli doonto oo iska badbaadin doonta Serie B mise midnimo sidii ay sameyn doonaan iyaga ayaa la arki doonaa waxa ay kulankan ka sameeyaan saaxiibayaal iyaga ayaana la arki doonaa waxa ay ku sameeyaan bandhig wanaagsan waa ay soo baasteen kubadda waqtigan si qurux badan ay u ciyaarayaan geeska ayaa la dhigay waa dhax ka tur wanaagsan la arki doonaaba bandhig wanaagsan ayay ku jiraan laakiin waa laga badbaadin karaa Sal Sports ayaa saaxiibayaal timitaan ka daawanaysan waa kan geeska gool haya Umar Ali Xasan ayaa badbaadiyay kubaddaasi si wanaagsan ayay u ciyaareen si wanaagsan ayay u sameeyeen bandhig wacan laakiin waa laga badbaadiyay ma ahayn bandhig wanaagsan kaarka digniinta ayaana la siinayaa waqtigan saaxiibayaal kaarka digniinta ayuu qaadanayaa ilka lambarka 24aad kooxda kubadda cagta midnimo ilka lambarka 23aad ilka lagu magacaabo Makulu ayaa qaadanaya waqtigan saaxiibayaal Makulu Bolizion afka hore ee goolka ay tuuran doonaan wiilasha midnimo walaad afka hore ee goolka ah walaad afka hore ah gool ayaa ka iman kara wax walba ayaa ka iman kara waana mid koox walba ka iman kara gool afka hore ee goolka wala arki doonaa cida halkan ay guushu ku raacdo wala arki doonaa cida halkan ay ku guuleysata galabta waa fariiqiga afka hore ee goolka ah cid walba waxay socotaa inay guul gaaraan iyaga ayaa toori karaan ilka lambarka 11aad ayaa u taagan fariiqigan isaga ayaa toori karo midnimo ayaana laga dhalin karaa midnimo ayaana laga hogaamin karaa midnimo ayaana wax walba sameyn karaan وافريقيا في كورة جول كا كيس واحد اللي نكران جول كي كواد يكون كا كيس واحد يسمين كران وحول باو يقول كجاري كران ولا فرصة سمية ولا جديدة فرصة هالي ساي هيت مدري ما واحد اللي كل من هالشتي وين هذا كلن كا وحي هيت فرصة هجان كعيار تلقى خبكرو وحي هيت فرصة سد حدا يبعد كلن كان كل من كران قلبتا لكن واي سكتين هوري الصومالي وجمع مادنين سكتين وصلنا لين هدي مر لو سجى مرك كلا طبعا شبكة يا لسوت ترسين دونا كوبداسي waxay ahayd fursad halis ay ahayd waliyaga ayaa ciyaarayaan waqtigan si wanaagsan ay bandhig wacan ugu jiraan markan wayna baashaalayaan bandhigooduna waa wanaagsan yahay ay ku jiraan bandhig wanaagsan waa ciyaareen markan waa madaxeeyay macallin Umar Xali الكابتن عمر
isaga ayaa ciyaaraya waqtigan wiilka lambarka 19aad waa kuwana gooli wana isaga ayaa ciyaara laakiin waa laga badbaadinayaa isaga ayaa ciyaara laakiin waa laga badbaadiya waqtigan Musa Mohaba ayaa tuuri doona saaxiibayaal Musa isaga wali ciyaaraya Umar ayaa racanaya laakiin waa laga badbaadinayaa kigis waxaa soo marta fursad dahabi ah filakiga ay birta ku garaaceen laakiin waxay ahayd mid kamid ah fursadihii ugu quruxda badnaa ee kulanka ciyaar jaaniskii ugu wanaagsanaa ay ku soo mari karaan ciyaar midkii ugu wanaagsanaa ee kulanka ay sameyn karaan si wanaagsan markan geeska ayaa la dhigayaa waqtigan waa duulaan waa kan wiilka lambarka 8 daqiiqadaha qaybta koowaad ee ciyaarta ka harsan laakiin qalad ayuu ka dhigay garsoorka qalad ayaa laga dhigay waqtigan waa inay ka soo baasan doonaan qaybta dambe isku daygu waa wanaagsanaa laakiin bandhiga ma ahayn mid guuleystay isku daygu waa wacnaa laakiin bandhiga ma ahayn mid gool laga filan karay isku daygu waa wacnaa laakiin bandhiga ma ahayn mid galabta halkan ay kooxdaasi kala kulmi kareen bandhig wanaagsan way soo badbaadinayaan saaxiibayaal waqtigan wala arki doona markan waa baasteen kubadda si wacan oo qurux badan taxkutur wanaagsan ay sameeyeen laakiin banaanka ayaa looga saaray kubaddaasi banaanka ayaa looga saaray waxay ahayd fursad halis ah si wanaagsan ay ciyaarayaan Musa Mohab banaanku soo wow si wanaagsan ay waqtigan u dhameystireen waxay dhaliyeen goolkii koowaad shabaqa ayna soo taabsiiyeen Musa ayna uga mahad celin doonaan iyo Towsan kuwaas oo galabta shabaqa gaaray waxaana goolkii koowaad ee qaybtii koowaad ee kulanka saaxiibayaal kibis hogaanka kulanka u dhiibay wiilka lambarka 3 Towsan wiilka lagu magacaabo from Boston Abujo ayaa lagu magacaabaa kulanku waa hal gool iyo eber waa ay hogaamiyeen waqtigan waa ay dhaliyeen goolka koowaad sidaas ayayna qaybta koowaad ee kulanka gabagabo ku tahay waana 43 daqiiqo oo ayna dhaliyeen goolkii koowaad ee kulanka waxa ay sameeyeen fursad qurux badan banaanka ayuu soo dhigay Musa Mohaba waxa uu ahaa isku day wanaagsan waa madaxeeyay isaga ayaana shabaqa sii taabsiyay inkastoo markii horeba kubadda ay gashay xitaa haddii uu daani lahaa ay gali lahayd waa ay baasteen waqtigan midnimo waa laga hogaaminayaa ciyaarta xilli xun ayaa laga dhaliyay wanaagay wahan lahaa waa kan Cabdallah isaga ayaa wali raacanaya laakiin maya waa laga diiday kubaddaasi waqtigan kigis goolkii labaad ay doonayaan inay dhisaan iyaga ayaa raacanayaan wali golahay Zalim Shacbaan ayaa gadaal ka soo bilaabi kara golahay Zalim waa soo karoosay waqtigan Leenaya Dijota si wanaagsan Saciid ayaa waqtigan gadaal ka soo bilaabi doona kubadda kooxdiisa gool ay ku hogaaminaysa shaqada ugu weyn isaga ayay markan dusha u saaran tahay waana inuu shabaqaasi ilaaliya aan gool laga dhalin kooxdiisana halkan gool ay ku nasiibsataa labadan kooxoodba marka loo fiiriyo bandhigooda horyaalka si wanaagsan ay waqtigan u ciyaarayaan mar kale Towsan maya halis ayay ahayd halis xoogan ayay ahayd laakiin waa laga diiday kubaddaasi way ciyaartu waa hal iyo eber waqtigan saaxiibayaal ugu dambeyntii dib ay u sii ambaqaadayaan waqtigan dib ayayna ciyaarta u sii ciyaarayaan saaxiibayaal
ku jiraan bandhig wanaagsan sameynayaan wax qurux badan laakiin guushooda waa la arki doonaa سوعان وقتيان صاحب يالو عياريان waxay sameeyeen dhax ka tur wanaagsan waa kan geeska Musa isaga ayaa ciyaariyo wali waa kan Towson waqtigan kulanku waa gabagaba saaxiibayaal waqtigan kulanku waa gabagabo iyagu waa ay sameeyeen bandhig wanaagsan iyagu waa ay sameeyeen wax walba qurux badan ay waqtigan saaxiibayaal u ciyaarayaan waxa ay ku jiraan bandhig wanaagsan waxa ay sameeyeen wax walba oo ay ku guuleysan karaan waa kan markan Kigis waa ay difaacanayaan goolkooda waa ay ilaalsanayaan fursadooda waa ay sameeyeen wax walba ugu dambeyntii qaybtii koowaad ee kulanka ayaa saaxiibayaal soo idlaaday labada kooxoodna hal gool iyo eber waxa ku hogaaminaysa Kigis midnimo galabtaha ayagoo midaysan ay u socdaan heerka labaad ee dalka waana arki doonaa qaybta labaad ee ciyaarta waxa uu ku soo idlaado iyo natiijada ay labadan kooxood la imaadaan dib ayaan saaxiibayaal iskugu soo laaban doonaa
qaybtii labaad ee kulan ciyaareedka kiis iyo midnimo ayaan dib saaxiibayaal u sii ambaqaadi doonaa. kiis waxa ay leedahay 5 dhibcood waa haddii halkan gool ay ku adkaadaan oo ay ku guuleystaan. sidoo kale midnimo waxa ay leeyihiin 5 dhibcood. badbaado waxa ay leedahay 5 dhibcood. dhammaan 5 dhibcood ay leeyihiin. saddexdooduba heerka labaad ee dalka ay u laaban doonaan haddii ay isdifaaci waayaan oo ay sameyn waayaan bandhig wanaagsan oo ay 12 kulan ee fuuda ku soo hayo ay is adkeyn waayaan oo ay ahaan waayaan kuwa sameynaya bandhig wanaagsan koodii ugu wacnaa. waan arki doonaa saaxiibayaal. wiilasha midnimo waqtigan waa ay daneynayaan inay gool dhaliyaan. waa la soo koraysa kubadda si wanaagsan. abel isaga ayaa raacanaya waqtigan. abel maya banaanka ay uga baxday kubaddaasi. khatar ay ahayd. waa laga badbaadinayaa laakiin laga badbaadinayaa mana noqon fursad halis ah. waa foorituur ay samayn doonaan wiilasha kooxda kubadda cagta midnimo. foorituurkooda ayaan ka dhowr sugi doonaa. foorituurkooda ayaan eegi doonaa oo aan fiirin doonaa iyo waxa ay keensadaan iyagu waxa ay la yimaadaan. si wanaagsan ay waqtigan u baashaalayaan. geeska ayaa la dhigayaa. waa kan wiilka lambarka 8 al cabdiraxmaan maan isaga ayaa duulaana. kiigis waxay socdaan goolkii labaad ee kulanka. galabta waxay u socdaan inay guuleystaan. cumar cali xasan maya isku day wanaagsan ayay sameeyeen laakiin waa laga saaray kubaddaasi. waxay ahayd mid qurux badan. waxay ahayd mid isku day ah. waxay ahayd mid bandhig wanaagsan ay sameynayaan. waxayna ahayd mid bandhig wacan ay ku sameynayaan galabta. si wanaagsan banaanka ayaa looga saaray kubaddaasi. si wacan u qurux badan ay saaxiibayaal waqtigan u baashaalayaan. waxay ku jiraan bandhig wanaagsan laakiin maya waa laga diiday kubaddaasi. banaanka ayaa looga saaray. waxay ahayd isku day qurux badan. waxa uu ahaa kulan xiiso badan. waxayna ahayd kulan kale oo qurux badan. waa ciyaareen waqtigan. waa baashaalayaan. haya geeska banaanka ayaa loo soo saarayaa. iyagaa waqtigan duulaan ah. waa madaxeeyeen. waa tuuray wiilka lambarka 22aad. waa baasay ibraahim shuwa. ibraahim banaanka ayaa looga saaray. abel ayaa soo tagtay waqtigan. abel ayaa u tagtay laakiin maya ma noqon mid haysa. ma noqon mid darbad xoogan ka imaan karta. ma noqon mid jaanis wanaagsan ka imaan karay. ma noqon waa soo koornayeen waqtigan. abel ayaa soo tuuray waana goolay. waa laga madaxeeyey. kiigis ayaa banaanka iskaga saarayaan saaxiibayaal. midnimo waxay daneynayaan goolkii barbardhaca ciyaarta inay dhaliyaan. midnimo waxay dhalinayaan goolkii barbardhaca. waa kan markan qalad ayaa laga dhigayaa laakiin maya waa laga diidayaa. iyaga ayaa ku jira bandhig wanaagsan. iyaga ayaana sameynaya bandhig qurux badan. iyaga ayaa ciyaartooda mid galabta halkan ay gool ku gaari karaan. iyaga ayaa mid halkan ay ku daneyni karaan. midnimo waqtigan waxaa ciyaartan ku soo galaya abuukar cabdullaahi cadnaan wiilka lagu magacaabo. wiilka lambarka 10aad abuukar ayaa waqtigan ciyaarta bedel ku soo gali kara. waxaana ciyaarta laga saari doonaa wiilka lambarka 19aad waana goolay. waan arki doonaa. waa kan markan midnimo waxay keenayaan weeraryahan ay bixin doonaan. macalinka miyuu qamaari doonaa. waa iska soo badbaadiyeen kigees. waa kan mar kale foorituur. cumar cali xasan isaga ayaa samayn doona foorituurkan. waa baasteen markan sawaan qurux badan. abel haya abel iyagaa waqtigan duulaana. geeska ayaa la dhigayaa saaxiibayaal. waa kan haddii la soo koro sahal iska imaan karta fursadan. midnimo waa tuureen kubadda. geeska ayaa la dhigayaa waqtigan. waa kan markan isku day qurux badan laakiin maya waa laga diidayaa. banaanka ayaana looga saarayaa. banaanka ayaa looga saaray. khatar ayay ahayd. waqtiga wiilka lambarka 8aad ayaa ciyaarta laga saarayaa. sidoo kale el capitano wiilka lambarka 4aad ayaa ciyaarta laga saaray. waxaana waqtigan kulanka ku soo biiraya saaxiibayaal wiilka lambarka 10aad. macalinka difaac ayuu bixinayaa. weeraryahan ayuu keensanayaa. babay galabta waa uu qamartamay. kooxdiisana waa ay samaysay wax walba oo ay gool ku gaari kareen. wax walba oo ay gool ku sameyn kareen. waa la arki doonaa. cabaas mukhtaar ayaa waqtigan kulanka ku soo biiri kara. cabaas mukhtaar isaga ayaa saaxiibayaal waqtigan kulankan ku soo biiri kara. isaga ayaana bedel lagu keeni karaa. geesay waa bidixii waa mid ka mid ah xidigaha halista ah.
si wanaagsan waa soo crosseen waa madaxeynayaan laakiin markan kigiisa ayaa duulaan qaadi karta waa iska soo badbaadiyeen geeskii taalla waa dhex ka tuur waa kan markan wiilka marka 18aad bandhig wanaagsan ayuu sameynaya laakiin maya waa laga diiday kubadaasi midnimo oo gool looga hogaaminaya ayaa gadaal ka soo bilaabi doonaan saaxiibayaal isku day wanaagsan ayay sameynayaan laakiin garab dhaafayo calan wadaha ka dhigaya waqtigan gadaal ayayna ka soo bilaabi doonaan miilasha kooxda kubadda cagta ay midnimo قضية لقد جاء داوع عيانا يا لقرانك واحدة عافيمات كايانا طبيبة يا صاحب يال كان ويل كلمبر كسدحية طبعا هذه مدني يا بدل كسو قال كرا صاحب يال وانا بدل كيلا هذه سمين يعني عبد الرحمن حسين يا وقت كان بدل كسو قال كرا اسكو دايها لسا يا سومر لبدا كوخوت isku day qurux badan ayaana soo maray laakiin midkii ay ku guuleysan lahaayeen ma ahan wax walba waa ay sameeyeen wax walbana oo ay gool ku gaari karaan ay sameeyaan laakiin waa la arki doonaa saaxiibayaal sidoo kale bedel ay saaxiibayaal waqtigan ku imaanaya wiilka lambarka 11aad Mohamed Umar ayaa bedel ku soo galay ciyaarta wali lama aan baqaaday kulanka si wanaagsan saaxiibayaal waqtigan u baashaalayaan ay ku jiraan bandhig wanaagsan wala arki doonaa laakiin wiilka lambarka 20aad ayaa kulanka ugu soo bedel ku soo gali kara Hanad Cali Nuur Hanad galabta kooxdiisa waxay u socotaa inay guuleystaan waxay u socdaan inay halkan gool ku gaaraan waxay u socdaan inay ciyaartan wanaagsan ku guuleystaan laakiin la arki doona laakiin la fiirin doona waxay ku kala guuleystaan waxay ku sameeyaan bandhigyadooda iyo sida iyagu kala guuleystaan oo ay gool ku kala gaaraan bandhig walba ay sameeyaanna waa la arki doonaa saaxiibayaal gool walba waxa ka dambeyn doonta gool Hanad Cali ayaa waqtigan kulanka ku soo biiraya saaxiibayaal bedel ayuu ku imaanaya si qurux badan ay waqtigan u ciyaarayaan waa baashaaleen markan wax ka turkooduna waa wanaagsanaan karaa waa ay soo badbaadinayaan waqtigan waa ayna ku dagaalamayaan saaxiibayaal waa kan geeska Yomoli ayaa banaanka u saaray galabta waa uu difaacanaya goolkiisa kooxdiisana gool ay ku hogaaminaysaa saaxiibayaal si wanaagsan ay u badbaadiyeen laakiin badbaadintoodu ma ahayn mid qurux badan mana ahayn mid wanaagsan waa kan markan apel
وانا جولي وانا وباسا كبدا وكان ويل كلام بركة تبناد الكابيتانو إسقى يا سوق لكن وعلى جسار كبدا وأي بحد مركن نظام محابة يا بدبادين كري اسكو دايقوا وخروح بدنا يومولي واكن جيسكا سيون أكسن مركن يجا دولانا كيس دولا دح بحية واهلز سدح كسدح هيا كيس ودولان واكن ويل كلو مجا عومان وامر مركن لكن ولا جبت بادي ولا جد دفاع دي لقى سارة بنانكا سخروح بدنا يولي عياريان بني وناكسنا ينكو جيران شنو كنت دقيقة عيار تمارس صاحب يال لابد كوحود جولي إبراهيم عيار تنليهن وصوص دالين كتان نتيجة كلن كان وكل ما كان صاحب يال وقت يوم وهال جولي إبر ويكوه جامينيان ولا شمد نمو ayaa loogu hogaaminaya wakiigis ayaa ku hogaaminayaan saaxiibayaal waad soo saadaalin kartaan natiijo walba kulankan waad soo saadaalin kartaa wax walba oo kulankan uu ku imaan karo si qurux badan ay waqtigan u ciyaareen bandhig wanaagsan ay sameeyaan haya markan hanad isaga ayaa ciyaaraya wali waa kan wiilka lambarka 10aad El Capitano isaga ayaa ciyaaraya Abubakar Abdullahi Adnaan Abubakar banaanka ayaa looga saaray kubadaasi si qurux badan ay wali u ciyaarayaan bandhigoodu waa wanaagsan yahay waa kan geeska waa kan wiilka lambarka 23aad dhax ka tur wanaagsan ayaa la sameeyaa bandhig wanaagsan ayayna ku jiraan waa kan geeska Tomzon isaga ayaa dhaliyay goolkii koowaad ee kulanka waa laga soo saaraya waqtigan waa laga soo saaraya saaxiibayaal Masal Sports ayaa ciyaartan ka daawanaysaan oo aad kala socotaan saaxiibayaal idinkaga imaanayso garoonka Stadium Muqdisho Yomoli iyaga ayaa wali ciyaarayaan Abubakar dhax ka tur wanaagsan ayuu sameeyay laakiin saaxiibkiisa ma uusan gaarin qalad ayaana laga dhigayaa waxaana la siini doonaa Musa Mohaba kaarka digniinta ah Musa Mohaba ayaa la siinayaa kaarka digniinta Musa Mohaba ayaa waqtigan la siinayaa kaarka digniinta saaxiibayaal waa wiilka lambarka afraad ee kooxda kubadda cagta ee midnimo Musa Mohaba isaga ayaa waqtigan la siinayaa kaarka digniinta ah Abubakar ayaa soo toori doona Foritur Abubakar ayaana la arki doonaa kooxdiisa iyadoo ay guul gaari karto iyadoo kooxdiisa ay sameyn karto bandhig wanaagsan Abubakar isaga ayaa soo toori doona kubadda haya Abubakar waa baasi kubadda markan Abela hamaya waa laga diiday kubaddaas Abela waa laga diiday waqtigan samafale ayaa qayb ka ah laba gool iyo gool kigis ayaa ku adkaan doonta ayuu leeyahay sidoo kale Nuurkano waxa uu saadaalinayaa oo muusan soo saadaalin Dalaal Mawlid wa alaykum asalaam saaxiib soo saadaalin kartaan kulankan natiijahan waxa uu ku soo idlaan karo Mahad Ziyaar wallahi cib kale oo bedel ku soo gali karo kulankan isaguna waa waalmiiteynaya isku leenaya waqtigan Yomoli waa kan Musa Mohaba Musa Foritur weyn ayuu sameeyay mana ahayn mid gool laga filan karay waa iska soo badbaadanayaan waqtigan waana waa kan ayaa wali ciyaarayo banaanka ayuu soo dhigay laga badbaadiyo waana wali kooxdiisa ayaa qaadanaysa laakiin garsoorka ayaa ka dhigay waqtigan waa laga dhigayaa si wanaagsan ayuu sameeyay laakiin waa laga diiday kubaddaasi isku day qurux badan ayuu ahaa laakiin banaanka ayaa loo saaray waa la soo tuuraya waqtigan waa la soo korosay waqtigan waa ay madaxeen karaan kigas Yomoli maya waa laga diiday inkastoo laba xidig ay isku dhaceen laakiin waa laga badbaadinayaa haddana salaad ayaa qayb ka ah waxa uu saadaalinayaa kulankan laba gool inuu ku dhamaan karo maamu alaykum asalaam saaxiib soo saadaali kulankan waxa uu ku idlaan karo markiis ayaa halkan gool ku gaari karaan dhaawac ayaa yaalo yani xidig ayaa dhaawac soo gaaray waxda caafimaadka ayaana dabiibi doonaan Abdi ayaa qayb ka ah laba gool eber ayuu kulankan ku saadaalinayaa Kigis iyo midnimo
labada ku saadaalinaya inay ku sii adkaan doonaan wiilasha kooxda kubadda cagta ee Kigis qadadaa laga dhigayaa waqtigan laakiin wax walba oo kulankan ku saabsan waan arki doonaa saaxiibayaal waan arki doonaa oo waan la socon doonaa natiijada kulankan uu ku dhamaaday galabta iyo sida labadan kooxood ay u sameeyaan bandhig wanaagsan ama ay u kala guuleystaan iyagu qadka dhexa ay taalaa waqtigan saaxiibayaal waa baashaalayaan waqtigan waa kan geeska si wanaagsan markan iyaga ayaa ciyaarayaan waa kan markan wana gooli waa kan Apela waa soo tuuray kubadda waa kan wiilka lambarka 22aad banaanka ayuu soo dhigi karaa Ibrahim Shua waa kan Abuukar wali iyaga ayaa ciyaarayaan laakiin maya Moussa Mohaba ayaa ka badbaadiyay banaanka ayuuna u saari doonaa Kigis goal midnimo eber ciyaartu waa 1-0 waqtigan wali waa ay socotaa maan 2-0 ay ku saadaalinayaan in kulanka uu ku soo gabagaboobi doono in kulanka 2 gool eber uu ku soo idlaan doono wali iyaga ciyaarayaan saaxiibayaal wali iyaga ku jira bandhig wanaagsan Moussa Mohaba ku xiisa duulaan ugu yahay wana gool banaanka ayaa looga saaray banaanka looga saaraya waqtigan wana gool ayaa banaanka looga saaray laakiin ma noqon mid halis ah ma noqon mid halis ka iman karta galabta waa soo saareen koona laakiin Yomoli ayaa banaanka u saaray wali iyaga ayaa ciyaarayaan saaxiibayaal wana gooli wana beel banaanka ayaa looga saaray mar kale wana koona kale waa ay soo tuuran doonaan wiilasha Kigis ayaa lagu soo tuuri doonaa midnimo ayaa tuuri doonaan Abel lugtiisa waa la saarnaan karaa goolka barbar dhaca ayaa ka iman kara waqtigan waa la soo korosay Abela waa soo geliya gudaha wali iyaga ciyaarayaan wiilka lambarka 15aad isaga ayaa raacanaya kubadda waqtigan iyaga wali raacanayaan saaxiibayaal laakiin maya qalad ayaa yaalo xidiga ayaana dhaawac sheeganaya waqtigan kulanka dib ayaa waqtigan loo ambaqaadi doonaa waa soo korosay goolaha iyo Saciid waa loo soo dhaxbixinaya waqtigan 2-1 waa kan Kigis goolkii labaad ay u socdaan waa 3-2 wali Kigis duulaana waa 5 xidig iyo 3 xidig oo Kigis wali iyaga ciyaarayaan gadaal ay ka soo bilaabeen waqtigan dhexda ayaa la soo dhigayaa waa kan wiilka lambarka 4 si wacan isaga ayaa kubadda la xaragoonaya Moussa Mohaba geeska ayuu dhigayaa waqtigan kooxdiisa duulaana Kigis waxay socdaan goolkii labaad maya halis ay ahayd laakiin maya waa laga diiday kubaddaasi banaanka ayaana looga saaray isaga ayaa ka qasaariya kooxdiisa fursad halis ah oo ay goolkii labaad ee ciyaarta ay ku qaban kareen hogaanka 63 daqiiqo hal gool iyo eber oo ay Kigis 43 daqiiqo ciyaartu markii maraysa 20 daqiiqo ka hor ay dhaliyeen ay saaxiibayaal wali ku hogaaminayaan ciyaartan iyaga saaxiibayaal waqtigan ciyaari doonaan Apel isaga soo tuuri doona waqtigan Apel waa soo laadeen markan ciyaarta gool ay noqon kartaa wali iyaga ciyaarayaan banaanka ayaa soo looga saaray midnimo ayaa waqtigan gool u socdaan laakiin gool lagu hogaaminaya inay guuleystaan waa ay u wanaagsanaan lahayd inay guul gaaraan waa ay u wacnaan lahayd laakiin waqtigan iyaga loo yaaba iyaga ayaa loo yaaba waqtigan macallin Babay laba bedel ayuu ciyaartan ka sameeyay sidoo kale hal bedel ayuu sameeyay macallin Mahad hanada ayuu ciyaartan keenay wali iyaga ciyaarayaan saaxiibayaal banaanka ayaa loo soo dhigay wani gooli waa dhiga geeska Rashid Magool hadii loo soo dhigo waa halis waqtigan waa duulaan Cabdalla waa laga difaacaya saaxiibayaal 1-0 waxay u socdaan gool inay sameeyaan waxay u socdaan bandhig wanaagsan inay sameeyaan waxay u socdaan inay hogaanka kulankan soo cishtaan waxay u socdaan wax walba oo ay ku guuleysan karaan inay sameeyaan si wacan oo qurux badan ee waqtigan u ciyaarayaan banaanka ayaa laga soo bilaabaya gadaal ayana ka soo bilaabi doonaan wiilasha kooxda kubadda cagta midnimo geeska waa kan wiilka lambarka 23aad si qurux badan iyaga wali u ciyaarayo waa kan markan waa dhax ka tuur waa kan geeska waa kan wiilka lambarka 22aad
ودولان وكان مركن مدنمو يجا وقت كان دولان صاحب بيال إبراهيم جنوا وباسكو بدأ إبراهيم وكان وانا جولي مية هل صحيح المركلة وين صوت أبسيان شبكة عبد الله أنا دلي جول كي كواد يكون أنك يارت وقت كان جول مدني من واعي بربرين جول كيلو الله مرنا واعي برجين شنوا بس قلوب بنا يبنان كسودي وقت كان واعي واو فرحة معلم بباي فرحة ما دام كوحديسة وقت كان جول عيارتها كديجين وفرحة أنت يا شمدني مو هدي أي بكينين جول كي بعدنا وضضا يكسر جرا كلي وحي وبهنا نضن تدل إيه شبكة صوت تابسيان الله ما هي فرصة هذه الساعة شبكة أيونا سي تابسيي ويل كان عجيب كاه لكن جيسك سقروح بدن ولي يجا يا عياريان الله ميا خلي ساي هيت باس قروح بدن أيو بنان كسودي وانا جولو أيا سار عيارتا واو اسكودي لكن ولا دمستري أو بنان كايو بهذي الكلام بركة كوية تبنات أيا وقت كان صاحب بيال عيارتا بدل كوي مان كرو مدامين أي عيارتان لكن كرا أمين أركضونا محمد أمين هدي هل كانوا يقول كجارو وقت كان وجول ويرو كينيا وأوكو جول استبدل كيو اسمه وكان مركم واضح كتور وكان كيجس سدح كافر كيجس ودولان وعيسى عدن جول كيلبات لنا يدشوتا بناك على صديق مية واو مركز أي شبكة صوت أبسيه لما جول أي عيارته مريسا وقت كان كيجس نواعي دليان واي هجامين أو واحد دبالدبيان مدنا مركز أي سؤال الله دري وقت جاي كسر جوابي دونان ولا سوي دونا waxay ku qaadatay dhowr iyo 20 daqiiqo inay ka jawaabaan goolkii koowaad laakiin waqtigan hadii ay markale dhowr iyo 20 ku qaadato ciyaarta ayaa ku dhamaan doonta malaha wana gool iyo laba gool oo ay kiis ku hogaaminayaan galabta الله ما هي فرصة ليسا بنانك أي صوري لكن gool hay zalim inuu qaban karayo muuqato laakiin ma aysan noqon macallin mahad badalkiisii dib ayuu celiyay waxa uu galabta sameeyay sidii Jose Mourinho oo kale waqti uu ku sugnaa Roma kooxiisa waxay u baahnay gool xidigii uu badalka ku keeni karay kii uu badali rabay ayaa shabaqa soo taabsiiyay gool dib ayuu u celiyay waqtiyan isaga laba ayuu leeyahay ciyaarta sidaan ay ku qurux badan tahay mahad Mourinho ayuu iska barbareynaya galabta wanaagsan markan iyaga waqtigan ciyaarayaan haye markan midnimo maya Rashid Magola yaa dhalini kara goolka wala arki doonaaba yaa la arki doonaa laacibka shabaqa soo taabsiyo kubadaasi laacibka la imaado kubada laacib ciyaarta keena goolka iyo laacib bandhigiisa lagu guuleysto galabta waa kan markan midnimo laba gool iyo gool ayaa la sii marsiinaya kiis hal iyo eber saaxiibadii Ilaahay way ku adkaan karaan saadaashaasi ku laabta ciyaartu waa laba gool iyo gool lambarka 11 ayaa waqtigan ciyaarta bedel ku soo gali doono waasoo tuuran kubada Yomoli banaanka ayuu soo saaray isaga ay shaqo u saaran tahay markan isaga iyo goolaha Saciid waa kan midnimo waa dhigeen geeska haya Abdullah maya wana gool kick gadaal ay ka soo bilaabi doonaan waqtigan waa ay ku jiraan bandhig wanaagsan waa ay sameynayaan wax walba oo ay gool ku gaari kareen laakiin ma aysan noqon fursad gooleed ma aysan noqon fursad ay gool ku gaari kareen waxa ay sameynayaan wax walba oo ay gool ku gaari kareen waa kan geeska wali iyaga waqtigan duulaan lagu yahay iyaga ayaa la weeraraya iyaga ayuu weerarka ku socdaa laakiin Allah midnimo waa dadaashin la idin ma oran karo hogaanka waa idin kala qabtay markii aad barbaraysanna waa idin kala leeyay taas waxay ka dhignaan doontaa midnimo waa ay dadaaleen lama dhihi karo laakiin dadaalkaasi waxa uu noqon karaa markii la dhihi jiray dalaalaha uu gaara si wanaagsan ay wali u ciyaarayaan saaxiibayaal waxa ay ku jiraan bandhig wanaagsan waxa la sameeyaa koros qurux badan laakiin maya waa laga diidayaa waqtigan waa laga diidayaa isku daygoodu waa wacan yahay bandhigoodu waa wanaagsan yahay laakiin dhamaystirkoodu ma ahan mid qurux badan dhamaystirkoodu ma ahan mid wanaagsan dhamaystirkoodu ma ahan
mid si wanaagsan ku socda galabta. si wanaagsan ay saaxiibayaal markan u ciyaarayaan. waa kan geeska waa sameeyeen bandhig wacan, waa ay ku jiraan bandhig wanaagsan waqtigan, iyaga ayaana duulaan qaadi karaan. fursad halis ah oo khatar ayaa soo martay kooxdan oo ay ka faa'iideysan kareen, oo ay gool ku gaari kareen, oo ay ku adkaan kareen, laakiin tani waxay ahayd mid aysan ku farxin jamaahiirta. tani waxay ahayd mid aysan ku farxin. galabta waa ay sameeyeen. cabdi maxamed waxa uu saadaalinayaa 3 gool iyo gool in ciyaartan ay ku dhammaan doonto, laakiin ma uusan sheegin kooxda guusha ay ku raaci doonto. ma uusan sheegin kooxda adkaan karta. mahad siyaar ayaa waqtigan kulankan bedel ku soo gali kara. waa laacib waana xirfadla sare, kulankan natiijadiisana wax badan ayuu ka bedeli karaa. laakiin ma noqon doonto oo ma guuleysan doonaan kooxdooda, miyay gaari doonaan guul? waa la arki doonaa, waana la fiirin doonaa. waa kan markan geeska, waa kan wiilka lambarka 22aad, waa baasi kubadda si wanaagsan iyaga raacanayaan. waa kan wiilka lambarka 18aad, waa baasi markan geeska gadaal ayay ku soo ciyaaray saaxiibayaal. ayaa midnimo waa linaya dijota waa duulaan, waxay sameynayaan wax walba oo kulankan ay ku guuleysan kareen. wali iyaga ciyaarayaan, banaanka ayaa la soo dhigayaa, si qurux badan ay waqtigan u baashaalayaan. haya midnimo waa ciyaarayaan waqtigan. waa kan geeska, waa kan wiilka lagu magacaabo Nuune, isaga ayaa ciyaaraya waqtigan. waa wiilka lambarka 7aad ee midnimo, waa duulaan, waxa uu sameeyay dhax ka tur wanaagsan. mar kale ayaa halis ka imaan karta, laakiin maya, halis ay ahayd, khatar ay ahayd, laakiin waa laga diiday. jaaniskaasi quruxda badan ee soo maray kooxdooda. ala soo hooyo markan banaanka loo saaray, waana la badbaadin doonaa fursadaani. ciyaartu waxay u muuqataa mid aan wanaagsanayn. 4 gool iyo 2 gool. cabdiraxmaan maxamed faarax waxa uu ku saadaalinayaa inay guul ku gaari karaan wiilasha midnimo. waqtigan waxaa bedel ku soo galay wiilka lambarka 11aad, waxayna bedeleen wiilka lambarka 9aad. sidoo kale mahad siyaar ayaa ciyaartan bedel ku soo gali kara saaxiibayaal. way ciyaareen waqtigan, banaanka la soo dhigi karaa. haya waa ciyaareen, laakiin maya apel banaanka ayaa loo saaray, waana laga badbaadinayaa. dhaxkatur wanaagsan ayay sameeyeen. waa kan markan abuukar iyaga ayaa ciyaarayaan. waa kan midnimo waa duulaan, maya banaanka ayay sooga baxday kubadaasi. banaanka ayay uga baxday, banaanka ayay uga saarmatay. waa la arki doonaa waxa ay la yimaadaan, waa la arki doonaa waxa ay sameeyaan bandhig qurux. waa sida iyagu leeyihiin, waa taageerayaasha ku sugan gudaha garoonka, maadaama khaladaad badan garsoorka uu isla sameynayn, haddana uu isagu fawlo badan ka diidayo kooxdiisa. way ciyaarayaan oo waa ay ku jiraan, waa ay sameynayaan bandhig wacan. waa tuureen markan, waa ciyaarayaan, laakiin bannaankay uga baxday. mahad siyaar ayaa la siini karaa. waa kan ibra bannaanka ayaa loo saaray. muusa mohaba isagu waa uu difaacan doonaa goolkiisa, waa uu is ilaalin doonaa. inay isdifaaci karaan oo ay samayn karaan wax walba oo ay ku guuleysan karaan ay samayn karaan, wax walba oo ay bandhig wanaagsan ku samayn karaanna waa ay gaari karaan. apel way ciyaarayaan waqtigan, si wacan oo qurux badan markan. waa baasin cabaas mukhtaar geesi, isaga ayaa lala ciyaaraya weli. waa kan markan ibrajua, waa baasi cabdallah, waa kan cabdallah ibrajua ayuu la ciyaaray, laakiin banaanka ayaa looga soo saaray kubadaasi. banaanka ayaa looga saaray, qalad ayuuna ka dhigaya garsooraha. waana 79 daqiiqo saaxiibayaal. waa 79 daqiiqo, 10 daqiiqo oo qura ayaa ciyaarta ka harsan in gebi ahaanba ay soo idlaato oo ay soo gabagabowdo. 10 daqiiqo kadib
midnimo iyagoo midaysan ay guuldaro qaadan doonaan u dhowaan doonaan horyaalka heerka labaad ee dalkeena laakiin halkan ay u qalmaan inay ku guuleystaan halkan ayna guul ku gaari karaan wiilasha Kigis maadaama ay shaqaysteen oo ay laba gool shabaqa soo taabsiiyeen halkan ay ku sameynayaan ciyaar qurux badan kaarka digniinta ayaa la siinayaa wiilka lambarka 18aad ee kooxda kubadda cagta midnimo waa la siinayaa waqtigan kulanka ee dib loo ambaqaadaya saaxiibayaal si wanaagsan waa tuureen markan maasiar oo iska soo saaray kubadda haya mahad saaritaankaasi waxa uu noqon karaa mid shabaqa laga soo saaro kubaddaasi haya markan iyaga duulaana gadaal ay ka soo bilaawayaan Yomali waa tuura kubadda Yomuli marka magaciisa la soo gaabiyo Yomali ayaad ugu yeeri kartaa si wanaagsan saaxiibayaal waqtigan u ciyaarayaan haya mahad siar no qalad ayaa laga dhigay garsoorkana ka dhigay galabta qaladaad badan ay ka sheeganayaan garsoorka kooxda kubadda cagta ee midnimo kaarka digniinta ayuu siin doonaa kaarka digniinta ayaa waqtigan la siinayaa macalinka labaad ee kooxda kubadda cagta ee Kigis maadaama qaladkaasi laga dhigay kooxdiisa way ciyaarayaan Yoma waa baasi kubadda si wanaagsan markan banaanka ayaa loo soo saaray haya Apollo waa madaxiyeen markan si qurux badan ay u ciyaarayaan wiilasha Kigis iyaga waqtigan duulaan ah waa 10 daqiiqo ugu dambeeyay kulanka ciyaari waa dhamaad waa kan mahad siar waa madaxiyay majaraan cid guuleysatay xawaariisa ayaa sareeyay laakiin waana laga soo badbaadinayaa wiilka lambarka 22aad ayaana banaanka uga saaraya kubaddaasi saaxiibayaal Abduzo wiilka lagu magacaabo waa ciyaareen waa ay ku dhacday laakiin waa laga badbaadinayaa Yoma isaga ciyaaraya wali Townsend oo wiilka lambarka 18aad waa kan dhaliyaha goolkii barbaraha Abukar iyo Tuura Cabdalla waa laga badbaadiyay laakiin si qurux badan ay u ciyaareen laga badbaadi laakiin mar kale iyaga ayaa ciyaarayaan waa kan Abbas Mukhtar Geesi waa baasi kubadda si wacan markan iyaga wali duulaan ah waa loo ciyaaray laakiin waa isqaldeen iyaga markan duulaan lagu qaadi karaa midnimo ayaa badbaadinayaan Abel waa ciyaareen markan si qurux badan iyaga waqtigan duulaan ah waana wiilka lambarka 13aad banaanka ayaana looga saaray Abdulrahman Hussein banaanka ayaa looga saaray kubaddaasi midnimo 3 ayuu leeyahay saaxiibkan salaad lagu magacaabo laakiin miya tani ma hariyo ku suurtagali karta maadaama midnimo laba gool iyo gool ciyaarta looga hogaaminayo waqtigan Kigis ayaa u dhow gool Kigis ayaa daqiiqad walba guuleysan karta laakiin tani waa kubadda cagta wax walba ayaa ka imaan kara koox walba ayaa gool daro la kulmi karta koox walba ayaana sameyn karaan banig wanaagsan waxay u socdaan goolkii saddexaad ee kulanka waana 3-4 xidigo Kigis ah iyo 3 xidigo midnimo banaanka ayaana looga saaray waa ay soo kornayn doonaan waqtigan ay soo kornayn doonaan waqtigan waana koona la arki doonee koornadan cid halkan ay guushu ku raacdo 70 daqiiqo waa la soo dhaafay waa 83 daqiiqo waqtigan macalinka midnimo waxa uu socdaa gool inuu halkan ka gaaro waxa uu socdaa inuu halkan ku guuleysto waxa uu socdaa kooxdiisa inay sameeyso bandhig wanaagsan waxa uu socdaa kooxdiisa inay sameeyaan wax walba oo ay ku guuleysan karaan waa soo tuureen kubadda iyaga midnimo ciyaarayaan waqtigan macalin mahad kooxdiisa galabta halkan ay 3 dhibcood ku yeelanayaan waxay doonayaan inay iska badbaadiyaan horyaalka heerka labaad ee dalkeena Soomaaliya division 1 ay aadi doonaan labada kooxoodba hore ayaa loo dhihi jiray waa isma dhaantiyo dhasheed maadaama iyagu dhibco ahaan ay ka siman yihiin 5 dhibcood Kigis iyagu waa ay sameeyeen galabta gool laakiin guushan ma ahan mid qayb uga sii ahaan karta horyaalka maadaama dhibco badan ay lumiyeen marka loo fiiriyo iyaga iyo hogaamiyaasha farq 15 dhibcood oo nadiif ah ayaa u dhaxeeyay iyo ka badan dakadaha waa kuwa ku dakeyn doona maalinta talaadada ah kooxda horseed caawiya maalin la arki doona cid halkaas guul ku gaarto iyo cid halkaas guushu ay ku dhacdo labadoodaba tigaan waa firkiig lagu soo tuuri doono kooxda kubadda cagta ee midnimo kaarar ay galabta ka dhargayaan kaar ayna qaadan doonaan wiilasha Kigis
waa soo tuureen markan waxay u socdaan goolkii labaad ee ciyaarta inay dhaliyaan laga badbaadinayaa weli ciyaarayaan laakiin banaanka ayaa looga saaray abal ciyaari waa gabagabo ciyaari waa dhammaad saaxiibayaal waa 85 daqiiqo oo qura ayaa kulanka ka harsan 5 daqiiqo oo qura ayaa ciyaarta gabi ahaan bay inay soo gabagabowda ka harsan wax walba oo galabta ciyaartan halkan ay ku sameeyeen waxay ahaayeen wax walba oo ay gool ku gaari kareen wax walba oo ay iyagu ku sameeyeen kareen bandhigooda wax walba oo ay iyagu ay gool ahaan ku gaari kareen la arki doonay cidda halkan ku guuleysatay iyo cidda halkan ay guusha ku raacday saaxiibayaal walaan ciyaareed xiiso badan ay halkan labadan kooxood ku sameeyaan وعيارين مقتيان هيا كيس waxay soo goolkii saddexaad ee kulanka iyaga ayaa waqtigan ku badara caadisay saaxiibayaal iyaga ayaana ku jira bandhig wanaagsan sameentoodu waa isareysa laakiin bandhigoodu ma ahan mid qurux badan galabta midnimo waa ay midaysan yihiin laakiin midnimadoodu galabta kama aysan saacidin labada gool ee kiis ay ku hogaaminayaan inay ciyaartan ka badbaadiyaan iskama aysan saacidin labadan gool inay iyagu ka badbaadiyaan tani waxay ahayd natiijo walba oo ay labadan kooxood gool ku gaari kareen waa ciyaareen waqtigan oo ay ku jiraan bandhigooda waa ay wanaagsan yihiin laakiin waa la arki doonaa cidda halkan galabta ugu guwato waa kan cabdallah yooma ayaa ka badbaadiyey yooma yuuli isaga ayaa ka badbaadiyey kubadda si wacan oo qurux badan ee waqtigan u ciyaarayaan waqtiga ciyaartu waa gabagabo babaay waxuu la kulmayaa guul darro waxuu la kulmayaa galabta halkan in lagu garaaco waxuu la kulmayaa halka inuusan ku sameyn bandhig wanaagsan galabta waa la arki doonaa cidda halkan guushu ay ku raacdo iyo cidda halkan guushu ay ku gaarto garsoorka ayaa laga dhowr sugi doonaa in gabi ahaanba kulankan saaxiibayaal uu soo gabagabeeyo daqiiqadaha soo aadan waa 87 daqiiqo ciyaari waa dhammaan ciyaari waa gabagabo injoko ayuu kulanku waqtigan ku dhow yahay Abbas waa crossing midnimo waxay imaan kara goolkii barbardhaca waxay sameyn karaan barbardhac xilli dambe waxayna lahaan doonaan 6 dhibcood iyagoona kooxda kubadda cagta ee Kings ay lahaan doonaan 3 dhibcood laakiin Kings barbardhacan ayaa ka dhigay inay lahaadaan 5 dhibcood waa ciyaareen waqtigan dhex ka tur wanaagsan la sameeyay Abbas Mukhtaar Geesiye banaanka soo dhiga Abbas Yooma ayaa banaanka u saaray laakiin Abbas waa uu isku dayay Abbas waa uu sameeyay laakiin Abbas fursadaasi kama dhigin mid isagoo kooxdiisa ay kala kulanta gool si wanaagsan iyaga wali ciyaareen laakiin laga badbaadiyay banaanka ayaana looga saaray wacyi yaalo waxda caafimaadka ayaa soo galay doonaan gudaha garoonka si ay laacibkaasi u dabiibaan haddii dhaawiciisu uu ahaado mid halis weyn kaga imaan kara wiilka lambarka 9aad ayaa saaxiibayaal waqtigan kulanka bedel ku soo galay ciyaarta waa soo galay waa la arki doonaa 89 daqiiqo ciyaarta waa soo tuuri doonaan waxay ku dagaalameen laakiin maya waa laga diiday kulanka waa uu soo gabagaboobay 4 daqiiqo ayaana lagu dari doonaa 4 daqiiqo kadib kulanka waa uu soo idlaan doonaa waa uu soo gabagaboobi doonaa Kings ayaana gaari doonaan guushoodii ugu horeysay ee horyaalka dareenkooda ayaa la weydiin doonaa iyo sida ay ciyaartan u arkaan Allah maya Zoraha waxa uu sameeyay wax wanaagsan laakiin ciyaartu kuma uusan soo qaadin kubadaasi inay tahay mid halis ah
si wacan way ciyaareen waqtigan banaanka ayaa la soo dhigay laakiin banaanka ayaa looga saaray يا وقتيان دولانا وكان كينجز وحسودان جول كي سدحد مهات في ارميه الله يا مهات وفزايد كايو كيلا لنا يا صاحب كيس مهات فرصه على استاهيد سو مرتي جول منتازا جول زبيتو يا وقتيان جول لو هي 4 دقيقه لو دري عيار وا دماد عيار وا قبل وقتيان صاحب يال ولا سو كروزيا way dhamaan kartaa ma yaa qalad ayaa laga dhigay dhankaas iyo waxa loo wadi doonaa wiilasha midnimo Kings ayaa laba gool iyo gool ku hogaaminaya kulankan saaxiibayaal si wacan isaga ayaa waqtigan u ciyaaraya kubadda isaga ayaa sameynaya bandhig wanaagsan isaga ayaa ku jira bandhig wacan isaga ayaa kooxdiisa galabta halkan gool gaarsiin kara Towson wuxuu ahaa dhaliyaha goolkii koowaad ee kulanka waa ciyaareen waqtigan waa loo dhigayaa Towson waa ku dhacay Matsiar isaga ayaa shabaqa soo taabsiyay goolkii saddexaad ee kulanka kooxdiisa ayaana 3 gool waqtigan dhalinayaan kuma uusan dabaaldegin kooxdiisii hore maadaama hore uu qayb uga ahaa kooxda midnimo waqtigan waxa uu muujinayaa xushmad mana uusan ku dabaaldegin Papai waa la garaacay galabta Papai 3 gool iyo gool ayaa lagu garaacay galabta kulanku wuxuu noqday gabagabo midnimana waxay helaysaa 3 dhibcood ee ugu horeeyay horyaalka barbardhac ay hore u soo galeen 2 jeer tani ayaa ka dhigaysa inay guushoodii ugu horeysay horyaalka ay gaaraan tani ayaa ka dhigayso inay gaaraan gool kale oo qurux badan galabta 3 gool ay leeyihiin saddex gool iyo gool ayaa waqtigan la sii marsiinaya midnimo waa ay ahaadeen kulankuna waa uu soo gabagaboobay waxaa la socdaa goolkii afraad waa kan mahad ziyaar mahad riyoora ayaana lagu abaalmarinaya waqtigan riyoora ayuuna ka dhigayaa garsooraha waa riyoore riyoora ayuu waqtigan ka dhigayaa garsooraha waa riyoore waxay dhalin doonaan goolkii afraad sida uu horyaalka u bilowday waa markii ugu horeysay 4 dhalinayaan kooxda Kings waa afartoodii gool ee ugu horeysay hal kulan ay dhaliyaan kulamadii ugu dambeeyay waxay ku jireen bandhigaan wahnayn laakiin galabta waa iska meelayaan gool daradii soo gaartay Kings way dhaliyeen goolkii afraad ee kulanka 4 gool iyo eber 4 gool iyo gool ayuu sii marayaa dabaaldegii Cristiano Ronaldo ee Zuna waa uu gashtay Kieta ayaa lagu magacaabaa galabta waxay gaareen gool weyn dabaaldegii Cristiano Ronaldo ee CR7 waa uu ku turtay Joko Vinito ciyaartuna waa soo idlaatay saaxiibayaal maadaama 4 gool la sii marsiinayo kooxda kubadda cagta ee Kings sikima dhara ayaa ciyaarta ka harsan waqtigan ciyaarta saaxiibayaal dib ayaa loo ambaqaaday صورك يا لسوق دونا سيريا كلن كو كيرسي سي عيارتو سو غبغبودو سي عيارتا ان جوكا اي نقطو افر جولي جول اي عيارتو سي مريسا وقتيغان ugu dambeyntii ciyaartu waa ay soo idlaatay saaxiibayaal waa ina soo gabagabooday guushuna waxa ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Kings 4 gool iyo gool ayna ku adkaadeen 10 kala amaan Allah
internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay